koowaad ee sheekadii la magac baxday axdi dumarna casnima u dambayso. sheekadani waxaa qoray qalinkan u qaatay qoray sare Jamaal Amiin. runtii dabeecadiisu ay aad iyo aad u wanaagsan tahay xagga waxbarashada iyo xagga akhlaaqdana heer sare ka gaaray ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu barasho la wadaagay inan la yiraahdo Hani oo ayadana ah inan akhlaaq iyo qurux eeba ku maneeyay. barasho dabadeed waxaa la isdhaafsaday telefoonada waxaana la guda galay in la haasawo xilliyada habeenkii fariimaha qoraalka iyo dhambaalada farxadeed la isku soo diro. in muddo markuu xiriirkooda sii socday oo qoto dheeraaday waxaa la bilaabay in la kulmo sidii jacaylka kor loogu sii qaadi lahaa. hase ahaatee maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhexdooda soo galay ruux saddexeeya waxaasi oo lagu magacaabo Cabdiwaahid oo wuxuu bilaabay inuu ku soo biiro tartanka loogu jiro inanta Hani. qiimaha iyo qadarinta naga mudano waxaa halkan inooga qaybta koowaad ee sheekada intaan qaybta labaad dib kaga gaari doono tan iyo kulanti dambe sidaas nabadgelyo.